السلام عليكم أصحابتي qaaligan waa idin wada salaam meel kastoo adduunka joogtaan waxaan rajeynayaa inay caafimaad qabtaan asxaabta cusub waxaan idin leeyahay nagu soo biirtay gacan furan kusoo dhawaada asxaabta hore noola joogtan waa idinkaga mahad celinayaa la joogistiina quruxda badan sidaa markasta iigu xiran tihiin maanta waxaa inoo wada qadadaas fudud ee kaala araga maasha allah tabaaraka allah sida arkaysaan waxaan halkan kusoo diyaarsaday laba xabo basal isla eg oo yacni weyn aanan saaid u yareen oo saaid u weyneyn yacni dubka kor ayaan kasoo fiiq waa soo nadiifiyey haddana waxaan diyaarinayaa basashiisi yaryar oo isla eg ayaan u jari doonaa basasha waa muhiim basal xoogaa inaa haysato yacni maraqan waxay qeyb weyn waxaa ka basasha inay yacni basasha ka qayb qaadanayso marka waxaan soo hoolayaa birtaas aan kusoo hoolaya waxaa waaye waa toon laba xabo toon kadibna waa isla arki doonaa toonta iyo basashaas ayaan usoo diyaarinayaa kadib waxaan halkaa kusoo diyaarsaday saxan yar oo aan rabaa toontii aan soo diyaariyey ee basashii inaan gooni u dhigo qadadan lagama sheekey karo waa qado aad iyo aad u fudud oo aad iyo aad u macaan badan oo haddii aad hal mar baroobeysaan insha allah oo aad ka heli doontaan oona iiga soo duceey doontaan haddii aad baroobeysaan oo tijaabisaan waxaan jeclaystay inaan idinla wadaaga maanta suugada fududahay bariis cad lagama sheekeyn karo insha allah halkan waxaa kusoo diyaarsaday waa laba shaf oo yacni digaaga shafka doorada digaag ama dooro sida qof walba u yaqaano oo jiirta soo marka waxaan usoo jarjarayaa si isla eg ayaan usoo jarjarayaa barafka ayaan kasoo rido oo kasoo bixiyay xilli hore ama haddii aad haysato microwga oo meesha wax lagu kuleeyo kale xilliga haddii aad babsi isleedahay oo kaleeto barafka waa kaga ridi kartaa haddii aad waqti haysatana banaanka inta soo dhigato tartiibkeeda ha u dhalaasho barafka kaga baxdo haddii aad wadanka joogtana oo ma baahnid fresh yani hilibka fresh ama digaaga fresh ayaa markaas helaysaa laakiin anaga qurbaha aan joognaa wax kasta waxay noogu jiraan fridge-ka marka hadda waxaan iska nadiifinayaa meeshii aan wax ku jarjaray oo yacni caagadii ayaan ka qaaday oo aan rabaa inaan masaxo kadibna waxaa waaye meesha wax ku qabsanayso waa muhiim in nadiif ku ahaato si hawshana ay kaaga fududaato halkan waxaan kusoo diyaarsaday suugadii waxa aan ku kari lahaa oo yacni digsi ma waxa waaye birta taawada ayaan soo diyaarsaday subaga arkaysan ayaan cuntada ku karsadaa waxa waaye cunto iyo waxa ku sawiran waxna waa ku dubi kartaa waxna waa ku karin kartaa qofkii yaqaan wuu garanaa marka waxaan soo qaatay 50 gram camal oo subag ma wax saliid ma isticmaali doono subaga bas isticmaali doonaa basasha way ii dambeey doontaa hadda waxaan ku shiilayaa subagii markii soo dhalaashay soo kululaatay digaagii aan soo jarjaray ayaan ku shubay marka digaag waxaan sameynayaa يعني عاقدة سايان هستا سي ترتيب أيان ولاقيا مرة بهيلب الدجاجة وما دورة يعني شفك وآد وجلعسين صو سائد هذا أول أخذ كابر بريا مرك سي ترتيب ونحرس هيا وقد قديني ما فهمتين ugu dambeyn digaagii saas ayuu kusoo shiilmay labada dhinac marka uu gadgadiyay kadibna markuu kalar yar yeeshtay waan kasoo saaray oo saxankaas yar ayaan soo diyaarsaday oo kusoo shubay marka hadda waa arkaysaa subagiisaas markuu yacni saxanka muusan gubanin laakiin waad dareemi kartaan halka waxaa kusoo shiilay digaagii san iska dhaqaayo waxaan sameyn doonaa basashii ayaan iyo toontii oo meesha goonida aan soo dhigtay ayaan hadda dusha kaga soo shubay soo marka basashan iyo waxaan rabaa iyo toonta si wanaagsan inuu dhex gasho oo hilib meeshii aan kusoo shiilay meeshii aan kusoo shiilay digaaga oo ayaan si fiican ayadan ugu shiili doonaa waayo kalarka bruun markay soo noqoto oosan kaa gubanin basashii kaa gubanin dabka gaabso waayo birtaawada marka way saaid ayaan usoo kululeeyay oo waxa ayaan kusoo dubay digaaga dhadhankeeda iyo wixii ayaa ku dambeeyay wali marka waxaan sameynayaa basasha indhaha markay kasoo yacni ka baaba'do kadib ayaan waxaan ku dari doonaa sida arkaysaan curry stark yacni waxaa waaye xawaaji kaari haddaa haysato waa isticmaali kartaa marka xawaaji kaari ilaa iyo xoogaa ayaan ku darsanayaa qiyaas ahaan inta aad cuntada ku qiyaasi karto
marka halkan waxaan ku haystaa wax yar oo cusbo yar ayaan ku daray. marka basashii iyo cusbada yar iyo waxaan hadda si fiican isku dhexgeli doonaa yani xawaaji kaarigii. marka waxaan si fiican isku dhexgeli doonaa. marka dabka aad iyo aad ayuu u gaaban yahay. halkan waxaan ku haystaa qaandada foodeeda, yani qaandada haafkeeda oo huruud cuntada lagu karsado. intaa ayaan si fiican haddana isku soo dhexgelinaa. markaa si fiican isku soo dhexgeliyo maaha dabka dab wax yani kaa gubanayso cuntada markaa waa gaabiyey dabka. haddii kaleeto waxaa waaye qaleel way ka gubanaysaa isla markii basasha iyo xawaajiyada iyo waxaa. halkan waxaa hadda kusoo diyaarsaday caanaha lagu darsado cuntada, caanaha cuntada loogu talagalay. haddii aad meelaha joogto waad helaysaa. haddii Soomaaliya hadda joogtana walaahi ma sheegi karo, laakiin insha Allah inay heli doonto supermarketyada meelahaas in laga helayo rajay doona. marka caanihii iyo basashii iyo xawaaji kaarigii ayaan si fiican isku soo dhexgelinaa. dabka u soo gaabiyey, daboolka ayaan usoo dhunjiyey. haddana waxaan dhaqanaynaa oo aan saaran doonaa dabka waa bariiskii. halkan bariiska ayaan kusoo diyaarsanayaa. bariis badan ma waa 2 qofood oo bariis loogu talagalay. kadibna bariiskayga ayaan iska dhaqanayaa tartiibkaygii. bariiska maaha bariis oo yani la daldalacayo iyo waxa, bariis biyo lagu saarayo, biyo cad bas, cusbo iyo biyo cad iyo wax yar oo saliid ah wasla arki doonaa. ugu dambeyn markii aan soo dhaqo bariiska soo nadiifiyey, halkan ayaan soo saaray sida arkaysaan. biyaha qiyaas wax yar ayaan kasoo dulmariyey. halkan waxaan ku darsanayaa cusbo qiyaas waayo cusbada in ugu roonaato ayaa roon markasta. haddii kale bariiska dhadhanka wuu ka dhumaa. xoogaa cusbe adig ku darsa insha Allah. kadibna waxaan halkan kusoo qaatay waa saliid caday, hal qaando oo saliid caday qiyaasta qof kasta indhaha ka galna Soomaali anaga markaana waxaa waaye wax kasta qiyaas ayaan ku samaysanaa insha Allah. saliidda waxay ka caawinaysaa bariiska inuusan isku dhadhagin oo furfur oo ku noqdo. ugu dambeyn suugadii waatanaa halkan maraq noogu karsamay. basashii si fiican ayay usoo kartay. basashii iyo caanihii iyo wixii dhan isku soo kareen, isku soo milmeen. kadibna waxaan sameyn doonaa insha Allah digaagii aan gooniga u saaray. haddaad arkaysid oo soo shiilay ayaan hadda dusha kaga soo shubay. waayo digaaga markii hore waa soo kariyey, haddana yani karitaan badan uma baahno. marka suugadan waxaa waaye aad iyo aad suugo u macaan badan oo waxaa waaye inaba caadi aan ahayn. marmarka qaarkood way wanaagsan tahay cuntooyinka qaar in la bedelo way wanaagsan tahay. halkan waxaan ku haystaa oo idin tusinaya waxaa waaye kareemka loogu talagalay cuntada ayaa loogu talagalay. sawirka qaatay insha Allah. kadibna halkan ayaa waxaan kusoo darayaa 3 qaando, 2 qaando iyo half iska dheh ayaan kusoo darsanayaa, waayo kama badinayo. kadibna si fiican isku soo dhexgelinayaa tartiibka. waxaa waaye suugadan bismillah maasha Allah lagama sheekay karo. qofkii dhadhami ayaan ka sheekeyn karo insha Allah. marka wasla arkaynaa suugada waxaa waaye dab badan ma saarno, tartiib ay u badbadaysaa. waqtigeeda ha qaadato waqti badan. waxaa waaye cuntada markii waqti badan qaadato ayay macaan badan tahay. suugadii waa kaasaas. kareemka wuxuu ka caawinaa gadaal dambe kaga soo degay suugada inay noqoto suugo yani jurmile ama adag xogaha. waayo haddaad caana ku daray caana biyo ayuu ka dhigayaa. hadda halkan waxaan kusoo daray waa broccoli aan soo jarjaray ayaan dusha kaga soo daray. 4 xabo kamaan soo badinin waayo broccoliga uma baahna karis badan. dabka ayaan u dhuunji doonaa. waxaa waaye kaaliska arag lagama sheekan karo, saas inaba caadi maaha. indihiin ayaa idin macalin halkan waxaa ugu karsamay oo ugu badbaday waa bariiskii oo inoo soo karkaray sida arkaysaan. saas qurux badan ayuu ku badbadayaa. marka waa isla arki doonaa. haddana bariiska waan daboolay. waxaan rabaa inaan saaro aluminium ama yani geeda loogu talagalay in foornada waxyaabaha lagu geliyo. waxaan rabaa bariiska inuu yaro huuro waayo biyaha markuu ku yareeyo waxaan rabaa bariis furfur oo kaaliska arag oo haddana bisil inuu noqdo insha Allah. ugu dambeyn bariiskii waa uu gursaday. waxaan isla arkaynaa sidoo kusoo baxay. bismillah maasha Allah bariiska saas ayuu furfur ku noqday oo diyaar ku yahay. waxaa waaye dabka ayaad u gaabsanaysaa. kaaliska arag bariiska ayuu ku noqonayaa. saliidda waxay ka caawinaysaa bariiska inuusan isku dhadhagin insha Allah. halkan waxaa noogu diyaar noqotay suugadii. saas ayuu usoo badbaday. kaaliska arag inaba caadi maaha. marka waxaa waaye dabkaaga u gaabso. ugu dambeyn suugadeeni sidaas ayaa diyaar kusoo noqotay sida arkaysaan.
waxaa haddana daboolka ayaan ka qaadayaa dhagdhag waa ay yara fadhiisatay suugada waxay noqotay suugo inaba caadi ahayn oo laga sheekeyn karin maasha allah tabaaraka allah. Halkan waxaan kusoo diyaarsaday kabsar caleen aan si yaryar usoo jarjartay iyo barbarooniga cas ama gaduudan isla soo yacni si yar ayaan usoo jarjartay barbarooniga isagana marka intaa ayaa si fiican isku dhex gelinayaa kadibna waa isla arki doonaa sida kusoo baxdo insha allah. Waxaan rajeynayaa in aad baroobeysaan oo ila aragtaan suugadan oo aad yacni marmarka qaar oo laga maarmo ilmaha loo jawiga loo bedelo bariiska aan isku dhex karinayno ama sida kale oo karinayno in marmarka qaarkood laga maarmo oo maraq suugo gooni saas aad u karsato kaleeto ilmaha ku casuuntaan insha allah. way wanaagsan tahay ilmaha marmarka qaar haddii lagu casuumo cunto aysan hore u arkin oo kaleeto ama cunto dhadhankii hore ka duwan cunto kaleeto ay tahay ma u baahnid maqaayad waxaa gurigaada ku farsameyso haddii aad tahay hooyo ilmahaagana way xiiso doonaan insha allah. suugada sida arkaysaan waxaan ku kariyay caanayaal kala duwan caanaas waxay leeyihiin fat yacni fat ayay leeyihiin ilmahana way ka caawinaysaa waa bariiska qallalan ee lagu karinayo saliidda kaligeed waxba uma taraysa caruurta insha allah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen muuqaalkan qadadan sidaas quruxda badan ayaa nooga soo baxday. ugu dambeyn qadadan sidaas quruxda badan ayaan kusoo diyaariyay qajaar ayaan gees ka soo saaray iyo barbarooni. fiidiyogan waa gabagabo haddii uu kusoo gaaro muuqaalkan oo daawato waxaan kaa baryaa inaad fiidiyooga ii share gareysaan oo ii like gareysaan insha allah. qaybta dhidhimintan anaa idiin joogo waa idiin dhidhiminayaa ma fahanteen inaba caadi maaha qadadan lagama sheekeyn karo. waxaan rajeynayaa insha allah inaad samaystaan oo ka faa'iidaan muuqaalka xig waxaan idiin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad.